siyaasi Mustafa Maxamuud Nuur oo kamid ah siyaasiyiinta Somaliland oo maanta wareysi gaar ah telefishinka caalamiga RTN ku siinayay gudaha magaalada Burco ayaa dhaliilihii ugu cusub u soo jeediyay wasiirka hore madaxtooyada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi kaas oo sheegay inuu dalka ku sameeyay hanti bob sidoo kale siyaasigu waxa uu sheegay inuu qayb ka ahaa heshiiskii DP World siyaasiga arrimahaasi ka hadlay waxa kamid ah hadaladiisii maxay raday wariyaasha iyo maxay saxaafadda RTN ayagana waa salaamaya aad iyo aad baa mahadsantihiin shukran baan leeyahay waxa say u kalifay nin qarankan baabiyay oo aad iyo aad qarankan u baabiyay oo maxay raday horumarkiisii iyo dhaqaalihiisii iyo magaciisii iyo huwanaanshihiisii intaba baabiyay ninkaas waa Maxamuud Xaashi waa wasiirkii madaxtooyada hore waxyaabaha uu intii uu xilka hayay inankaasi sameeyay ama ninkaasi sameeyay wax bil inanta yar ee laba jirka may sameyn qarankan qofka saddex jirka ee aan af Soomaaliga umma fahmayo oo kasta uu garay wuxuu sameeyay qarankan ka galay iyo bulshadan musuqmaasuqu sameeyay qabyaaladu sameeyay dagaaladu curiyay ee uu ka curiyay meel walba waxa soo dhan waan cadeynay si maanta si cad baan u cadeynaya isagoo oo gudoomiyaha xusbiga wadani oo sharaf iyo karaamo huwan oo nin aqoon-yahan ah oo nin mustaqbal xusbi ka doonaya qarankan mustaqbal iyo nabadgelyo ah oo Somaliland nin maanta siyaasadda kaga horeeya iyo nin maxaa raday ka laxla jalcabade aanu jirin qarannimadeeda iyo magaceedana jecel ayuu maalin dhaweyto aflagaado aan geedna lagu soo gaban uu jeediyay wuxuu sameeyo kale inda adeegii maanta dalkan iyo dawladdan cusub saameynta ku keentay hadday tahay DP World Maxamuud Xaashi wada sababha madaxweynihii hore qarankan joogay nin weyn buu ahaa ninkana waqti uu heli karaa waqtigii baad kaga faa'iideysay odaga hayay baad kaga faa'iideysatay DP World adaa ka shaqeeyay oo nimanka roobalida ee imaaraadka ee caalamka oo dhan ka qayliyeen adiga keenay dawladdiina way cadays imaaraadku wasiirka arrimaha wasiir dawlaha arrimaha dibadda ayaa cadeeyay inaanu Somaliland aqoonsanayn inaanu safaarad ku lahayn inaanu xalaali wax maalgashiyo oo ramsiyo oo Soomaaliya aan ahayn Somaliland uu galinayo uu sheegay heshiiska inuu Soomaaliya la galeen dawladda Soomaaliya uu cadeeyay waxa galay ee dalkan galiyay waa adiga maalintii la doortay Farmaajo ee dawladdiisa la doortay safarkii ugu horeeyay wuxuu u baxay imaaraadka markii waad ka daba duushay imaaraadka waa la ogaa ummaddu way ogtay Somaliland ku joogtaa in aad airport ku sugaysay oo aad kadinka u taagnayd oo laga furi waayay markii dambe uu xashka qabtay imraa qabtay Sacuudiga qabtayna waad kaga daba tagtay imraa u taagnayd kadinka ku sugaysay uu ka furi waayay albaabka waxaad ku sigatay inaad Soomaaliya diyaarad uga daba raacdo adiga oo doonaya heshiiskii musuqmaasuqa ahaa ee qarankan aad gelisay adoo doonaya inaad mar labaad ku fuliso oo aad ka fushato taas waa taas ugu dambeyntii siyaasigu waxa uu ka hadlay dhimeedii sanadkii la soo dhaafay 2017 kaas oo sheegay in la ururiyay lacagtaas oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu saameeyeen balse uu sheegay lacagtaasi meel ay martay inaan la garanaynin siyaasiga waxa kamid ah hadaladiisii الآن كانوا وقتها دولة حكومة أصول موسى كده باران لا كيسكي يدم بيردم كان يديك يدم إنجليزي لبا لعكتي أمتك سيدي يتوقع ميمات سعودي سيدي يتوقع يدي مي كوريسي waxaa tii dadka abaaraysan iyo dadka dhibaataysan ayaa lagu caawinaya lacagtii miisaaniyadda hay'adda lagu tala galay dalka in lagu qabto maxaa la istii 12 May iyo tii ganacsatada aad ka urursay iyo tii maxaa la jaaliyada dabadda laga soo ururiyay Somaliland
iyo tii baankan Soomaaliland ku soo dhacaysay wixiiba akoon baad ku shubatay bal $1 cid aad siisay cid aad $1 siisay iyo meel ay ku baxday lacagtii ummadaas oo dhan lahayd ee dhowr iyo 30 milyan ahayd meel allaale iyo meel aad geysay soo jeebka damba baad gashan Shaakir Cabdi Axmed telefishinka caalamiga RTN